waxaa maanta dhici doona 9 kulan oo Champions League ayaa dhici doona hase yeeshee waxaan rabaa inaan soo qaato kooxaha Slava Prague iyo Arsenal oo wada ciyaari doona PSG iyo Bayern Munich oo wada ciyaari doona Liverpool oo martigeli doonto kooxda Real Madrid saddexdaas ayaan rabaa inaan soo qaato haddii aan ku hormaro kooxda Arsenal iyo Slava Prague oo bilaabo doonto xilli hore waxaan isleeyahay Slava Prague iyo kooxda Arsenal in aysan isku tayo ahayn oo kooxda Slava Prague waxay ku jirtaa kaalinta 28aad ayay Champions League ugu jirtaa 2 dhibic keliyana way leedahay meesha Arsenal ay kaalinta 4aad ay ku jirto Champions League 9 dhibicna ay leedahay oo saddexdii ciyaar ay ciyaartay saddexdaba Arsenal ay adkaatay laba koox isku awoodana ma aha Arsenal waxaan la soconaa Premier League hoggaanka inay hayaan hase yeeshee waxaan isleeyahay Arsenal ciyaar aad iyo aad u culus ayaa ku soo socoto taasoo ay la ciyaari doonaan kooxda Sunderland oo aan ognahay Sunderland Arsenal inay yihiin labada koox oo Premier League xagga difaaca markii la dhaho aad iyo aad ugu fiican oo kooxda Sunderland sida ay Premier League ugu soo biirtay 14 ciyaartooy ayay soo gadatay ayay keentay 5 ciyaartooy oo difaaca ayay ku ciyaartay 4 dhexda iyo 1 ciyaartooy kaliya hore wayna adag tahay si gool looga dhaliyo saas daraadeed Arsenal waxaan isleeyahay ciyaartooyda kaydka ayay diri doonaan ay ciyaarsii doonaan oo ma u malay doono in ciyaartooydooda koowaad ay ciyaarsii doonaan sababtoo Arteta wuxuu isha ku hayaa in ciyaarta Sunderland uu ka adkaado taasoo uu ku fikirayo inuu Premier League uu sii dheeraysto si kastaba haatee waxaan fili doonaa in la fadhiisi doono Saka iyo ciyaaryahankaas inkastoo la leeyahay Gyökeres dhaawac yar ayuu qabaa lama hubo laakiin waxaan isleeyahay in uu fadhiisi doono ay u badnaa doontaa Gyökeres oo runtii aad iyo aad isu bedelay gool dhalintiisa ilaa 4 goolna uu leeyahay inkastoo Gyökeres xagga dhaqdhaqaaqa oo aad iyo aad ugu fiicaya Arsenal ciyaaryahano badan ay dib ugu soo naqanayaan marka waxaan fili doonaa difaaca Mascherano inuu ciyaarsii doono oo u malay doona Saliba ama Gabriel mid kamid ah inuu nasi doono qaasatan Saliba ayaan u malay doonaa inuu nasi doono ciyaartaasna waa ciyaar ay Arsenal ay guuleysan karto haddii aan u leexdo ciyaarta weyn oo la wada sugayo oo Anfield ka dhici doonto oo Liverpool iyo Real Madrid dhex mari doonto waxaan la soconnaa kooxda Real Madrid inay koox weyn tahay oo Champions League kooxda ugu koob qaadida badan tahay Liverpoolna dhibaatooyin ayaa ku jiray inkastoo ciyaartii Villa ay ka soo kabsatay inta badanna tababaraha waxaan qabaa 11kii oo ciyaarsii lahay inuusan ilaa hadda Liverpool aysan u fadhin uusan ogeyn haddase waxaan isleeyahay inuu dib ugu naqday 11kii hore oo ka dhaxlay tababarihii hore Jurgen Klopp oo ka dhaxlay ayaa dib ugu naqday Villa ciyaartaas inta badan ciyaartooydaas ay markii laga reebo Ekitike markii laga reebo oo difaaca waxaan la soconaa Robinson inuu dib u soo celiyay Bradley inuu keenay Van Dijk iyo Ibrahim Konate inay gadaal ay joogeen dhexda sida caadiga ahayd ayuu ka dhigay oo Gravenberch oo aad iyo aad u fiicnaa runtiina ciyaaryahanada ugu fiican Premier League dhexda ka dheelo nambarka 6 ka dheelo waxa loo yaqaan box to box ka galo gool aad u fiicanna ka dhaliyay Villa iyo McAllister iyo Szoboszlai oo laftigiisa nambarka 10 ka dheelay aad iyo aad u fiican ayuu dib ugu noqday labada dhinacna Salah iyo Gabo ayuu kala saartay oo ka teekay kaliya ayuu ku soo kordhiyay runtiina waxaan qabaa inay tahay kooxdii oo hore uga dhaxlay inuu haddana dib ugu naqon doono ciyaartan Real Madrid oo aan fili doono meeshaas inuu ku qasban yahay inuu wax ka keeno oo waxaan la soconnaa kooxda Liverpool inay 2 mar ay badisay 6 dhibic leedahay kaalinta 10aadna ay ku jirto meesha Real Madrid aan la soconno inay kaalinta 5aad laftigeeda ay ku jirto inkastoo 3 mar ay adkaatay si kastaba haatee Real Madrid dhankeeda lama dhayalsan karo oo waxaan la soconnaa koox awood badan inay tahay ciyaartii ugu dambeysay La Ligana ay soo adkaatay 4 gool ay ku soo adkaatay horena weerarkooda waxaan ognaa aad iyo aad inuu u fiican yahay iyo dhexdoodaba oo Vinicius Junior iyo Mbappe inay joogaan Arda Güler laftaantiisa wiil aad iyo aad u fiican dhexdoodana waa la soconaa Bellingham qaliin oo galo muddo oo maqnaa inuu dib ugu soo noqdo ciyaartii Barcelona oo gool dhaliyay dhexdana aad iyo aad ugu fiican yahay nambarka 10aad aan u dheelo goolna dhaliyo waxna uu difaaca tujumeynina oo la joogo runtiina waxaan isleeyahay waa koox aad iyo aad runtii u awood badan difaac ahaanna sidii hore way ka fiican tahay laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay Alexander Arnold ma la ciyaarsi doonaa mase waa la fadhiisi doonaa
oo booskiisa nambarka labaad runtii waxaa ka dheela ciyaaryaankii dhexda ka dheelaya Valverde oo dhexda ka dheelo nambarka 8 ayaa nambarka labaad tago Alexander Arnoldna uu soo reesta marka Alexander Arnoldna waxaan la soconaa xagga difaac ahaan inuusan difaaciisa fiicnayn laakiin weerarkiisa oo aad iyo aad u fiican yahay ciyaartan Anfield ay imaan doonaanna Real Madrid waxay u baahan yihiin inay isdifaacaan oo ciyaar ay banaanka ay ku dheelayaan waaye marka saas daraadeed waa inay iska ilaaliyaan xagga difaacooda inkastoo dhexdoodana aad u fiican tahay oo Malita laftigiisa oo meeshaas oo joogo oo ciyaaryahana dhexda ka dheelo difaaca oo yaa oo la joogo ciyaaryahankii Bournemouth ay ka soo gadeen Hussein oo la joogo saas daraadeed waxaan isleeyahay difaacan Real Madrid muxuma iyo dhexdoodaba aad iyo aad ay u fiican tahay marka Liverpool iyo Real Madrid waxaan isleeyahay in Real Madrid ay badinayso ayaan isleeyahay markaan fiiriyo xagga weerarka xataa in laga weerar fiican yahay kooxdan Liverpool qalqal weyn oo ku jiray difaacooda taas ayaan waxaan u aaday dhankaas iyo Liverpool Arsenal iyo Slava Bragna Arsenal ayaa guusha soo qaadayso ayaan isleeyahay laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay Alexander Arnold taageerayaasha Liverpool ma soo dhaweey doonaan mase way ku qayli doonaan ani waxaan fili doonaa inay ku qayli doonaan ayaan fili doonaa oo si wanaaga muusan uga tegin kooxda Liverpool markii uu ka tagay marka waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan aad iyo aad u fiican marka waxaan isleeyahay awoodda waxaa iskale Liverpool waxaan isleeyahay Real Madrid ayaa ka taya badan kooxda Liverpoolna qalqal ayay ku jirtay saas daraadeed aniga waxaan aaday kooxda Real Madrid oo Mbappe iyo Vinicius Junior hadday jaanta isla helaan ma u maleynayo difaaca Liverpool inay celi karaan haddii aan u gudbo dhanka iyo PSG iyo Bayern Munich waxaan la soconaa inay 3-0 uga soo adkaatay kooxdii Leverkusen Bundesliga-hana inaanaba laga adkaanba oo intaasoo dhan ay guul joogeen waxaan kaloo ognahay ciyaaryahanadii weerarka u ahay Diaz iyo Harry Kane kaasoo 12 gool u dhaliyay Bundesliga dhaliyay gool dhalintiisa aad iyo aad u fiican tahay iyo Olise inuu fadhiisiyo ciyaaryahanadii biidahay oo ciyaarsiiyay Leverkusen oo la ciyaarsiiyay oo 3 goolna uga adkaaday runtii Vincent Kompany sida uu yimid kooxda Bayern Munich waxa u malaysaa awoodooda aad iyo aad u fiicnaad oo sanooyinkii ka horreeyay intuusan imaan inta badan ciyaarta ugu dambaysa ay Bayern Munich ay koob ka qaadayeen ama waaba laga qaaday oo sanadkii Bayern Leverkusen waatay ka qaaday xilligii oo joogay Alonso oo joogay laakiin hadda waxa u malaysaa in laga badin la ayaabo oo koox aan la taaba karin loo dhawaa karin inuu ka dhigay Vinicius Junior si kastaba haatee wuxuu indhaha ku hayaa PSG-na waa la soconaa koox fudud ma aha ciyaaryahano aad iyo aad u fiican ayay haystaan inkastoo laftigiisa uu yahay tababare kubada gaagaaban ku dheelo oo asalkiisa hore City iyo ka yimid haddana waxaan isleeyahay waxaan fili doonaa in PSG ay ka awood badan tahay Bayern Munich guriga PSG-na lagu dheeli doono PSG-na waa la soconaa inay kubada gaagaaban dheesho khaasatan waxaan isleeyahay PSG waxay aad iyo aad uga fiican tahay difaacooda weerarka ka qayb qaata khaasatan labada dhinac Hakimi iyo ciyaaryahanka kale oo asigana Mendy oo dhinaca bidixda ka dheelo iyo dhexdooda oo kubad dhiibidooda iyo dhaqaaqooda aad iyo aad u fiican weerarkoodana waa la soconaa Dembele iyo Doué iyo inay yihiin ciyaaryahano aad iyo aad u fiican oo aan lacag celi karin iyo Shaqsvili marka PSG ayaan isleeyahay ayaa soo guuleysanayso PSG iyo Bayern Munich markaan isku babar dhigo oo PSG waa kooxda Champions League haysato waxaana la soconaa in ay hadda labadooda kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ay ku kala jiraan labadooda laakiin koox ayaa sii xoojisa doonto aniga waxaan isleeyahay PSG ayaa badinayso tay ahaan markii aan fiiriyo laakiin Bayern Munich laftigooda shaqada uu ka qabtay Vincent Kompany shaqo fiican ayuu ka qabtay laakiin ma u maleynayo inay la jaan qaadi karto kooxda PSG adiguse maxay kula tahay 9 kulan oo dhacayo Arsenal ma kula tahay ciyaartooyda biida inay dheelsiiyaan mase ciyaartooydooda eeda inay dheelsiiyaan waa Real Madrid iyo Liverpool maxay kula muuqataa Liverpool gurigooda joogto ma badi kartaa mase Real Madrid ayaa badinayso sidee adag kula muuqataa bal fikradaada nala wadeeg Bayern Munich iyo PSG-na ayaa guuleysanaya ayaa isleedahay aniga PSG ayaan isleeyahay adiguse sidee kula tahay qof walba fikradiisa ha nala wadaago